waxaa sidoo kale macradkan qiimaha badan ka soo qayb galay ganacsade ka socdo oo khabiirna ku ah dhanka beeraha mudane Yaxya Cabdullaahi soo dhawaaw aad iyo aad u mahadsan tahay raam xaqiiqdii bandhiga wuxuu noo ahaa bandhig aad iyo aad faa'iido u noo leh waxaan ka filinayna iyo waxaan ka helnay waxa badan wax laga helaa badan ka beera ahaan xaqiiqdii markaan fiiriyo wax soo saarka waddankeena markaan fiiriyo dhan walba markaan fiiriyo Soomaalidana waxay barteen wixii halkan China in wax laga qaado Soomaali la geeyo laakiin waxaa jiro waxyaabo tiro badan oo waddanka laga oo halkan la keeni karaa jirto tusaale ahaan fursad badan jira halkan oo ku kulkulnay ganacsado oo shaqeynaysa tusaale ahaan haddii la fiiriyo dhanka xoolaha ama dhanka kalluumaysiga ama dhanka beeraha fursadaha halkan ka banaan marka shirkadaha gudaha ganacsatada waaweyn oo jaab kale waxaan u sheegayaa inay ka faa'iideystaan waddanka dhaqaalihiisa oo kor u kaco wax soo saarka waddanka inay soo qaadaan soo dhoofiyaan ee China kana waxa la soo dhoofi karo waxa kamid ah cambaha kamid ah xaqiiqdii waxaan la weydiiyay waxa kamid ah waxa caalamka sheegnaa inaan nahay dadka ugu tiro badan leh xoolaha dhanka geelka haddana waxaan la weydiiyay ma haysiin caanaha geel powder of waxaan la weydiiyay budada caanaha geelkana la weydiiyay beelku ma sheegi karo kaliya caanaha geel waa cabnaa suuqa lagu iibiyaa laakiin shirkadaha waxa uu sheegayaa waxa loo baahan yahay caanaha geel budadiisa si waxyaabo shirkaan ka ogaan waxa kamid ah waddanka la dhahayo Emirates waxay sheegtaanba in waddanka ugu tiro badan la geelka inay iga yihiin ayaga laga soo dhoofiyaa budada caanaha geel aniga ugu badan caanaha geelkan kambaniyal iyo customer fiican shayna way leedahay waa inaan warshado sameynaa aan soo dhoofinaa ganacsatada intaas uu baaqaya maxaa kale uu baaqaya waxyaabaha kale loo baaqaya waxa kamid ah cambaha kamid ah oo la soo dhoofi karo waddanka la keeni karo sidoo kamid ah la soo dhoofi karaa sidoo kale waxa cajiib ah shirkaan ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza ka soo qayb galay oo ganacsatada u sheegay waxa inta laga qaadayo maan wax la soo qaadayo in loo fududeey doono oo la soo qaado marka ganacsatada waxa uu sheegaynaa oo waxyaabaha ganacsatada kale oo in Dubai ama China wax laga qaado ku mashquulsan waddanka waxa ka soo qaadaan keenan sidoo kale safaaradda China waxa noo joogo dad aad u wanaagsan oo ugu horeyso safaaraddeena hodan oo si fiican noo soo dhaweysay xaqiiqdii maalin yar ku imaanay waxayna la ahayd rayo inaan China ku imaan baasaboor Soomaaliya lagu tagi karo laakiin waxaad hadii ku cad yihiin ganacsatada aad tahay shuruudaha ay ku dhameystir yihiin waa imaanaysaa ka faa'iideysta halkan dhaqaalaha waddankana sare u qaadna waxa kale oo cajiib ah halkan hadda aan taaganahay waxa waa buudka Soomaaliya waa loogu talagalay in lagu soo bandhigo waxyaabaha loogu talagalay Soomaaliya waa u jeedin halkaas ay qoran tahay wax la soo bandhigina haddana waxa waay wax weyn ma aha laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah in sanadka soo socda ama bisha November shir weyn dhici doono in waxyaabo badan la soo bandhigo si wax soo saarkeena iyo dhaqaalaheena sare u qaadno ugu dambeyn waxa si kal iyo laab ah ugu mahad celinaynaa safaaraddeena Soomaaliya oo ugu horeyso ambassador hodan ugu horeyso sidoo kale commercial attaché guuleed waa nin howlkar ah ugu xigo aad iyo aad u mahadsan yahay dhammaan tiimka guud ee safaaradda Soomaaliya ee China noo matal aad u mahadsan yihiin aad ugu mahadsan tahay wareysiga qiimaha badan aana siisay macluumaadka oo muhiimka ah oo u baahan yihiin dad badan inay maqlaan maanta inaa maqashiisay aad ugu mahadsan tahay soo dhawaad Allah ku shukr mahadsan tahay so only we use for water no soil right yeah no soil it is water and nutrients. How much the cost of like this container? and Nutrient solution. yeah the solution. How much? How much money? How much? Is 15,000 to 200,000 RMB. RMB. Yeah. What about for dollar? For dollar is almost 10,000 to 10,000. 3,000. Oh, okay. Right? No, 10,000 to 30,000 dollars. Yeah. Okay. So I get this system. Yeah. But do you have another hydroponic system like power hydroponic system? Yeah, of like course. For, yeah. Yeah, we have the tool, yeah. And you can this one we can design by your need. Okay. If you need to different kind of vegetable, we also can create different system to them. Thank you very much. Yes, so okay. this is your WeChat? No, it's in my boss WeChat. This one? Yeah. Oh, what so about- you can If I contact your boss, maybe he talk to me in
English language, right? Yes, You know English, language? yes, also Oh, English. Okay, I will contact him, Yeah. and he will send me the different system for different hydroponic system. Yes. Then I will check it. Then I will contact you. Where is your city? Your location? It's Ningxia. It's Ningxia. Yeah, Wow, Ningxia. that's good. Yeah. If I visit you, I will contact you tonight. Then if I get time tomorrow, I will visit you. Okay. Okay, thank you very much. What's your name? My name is Cecilia. Sandra. Yeah, but we can add the WeChat you. Okay. And if you have any question, also can ask me. Okay. maanta waxaan joognaa bandhig oo ka dhacayo Chinaha kaas aan magaalada la dhahayo Xinjiang ama Ningxia halkaan ujeedin waa container ku dhex beeran hydroponic system kaas ahaan nooca loo yaqaano maxaa la dhahaa automatic hydroponic system marka aan sharxayno waxaa la isticmaalaa biyo keliya iyo nutrients halkaan ku jiro halkaan ujeedina dalagyaa ku beera waa meel cimilada ay control tahay wax xasharaad ma soo galaayo waa meel aad nadiif ah dalagan si dhaqso u koraay dhadhan fiican wax soo saar fiican galaayo saa ujeedii halkaan waxaa ku abuuran digir nooc kamid ah digirta halkaan ku abuuran halkaan waxaa ku abuuran asalaatadii aad garanayseen Soomaalida inay karinaysa halkaan ku abuuran kan nooc kamid ah bataatiga halkaan ku abuuran maybe halkaan ujeedii hortiina in waxa ku yaalo geed loo yaalo Spanish ama asalaatada Soomaalida taqaan marka teknolojiyada oo kale waxa waaye teknolojiyada wadankeena oo aad ugu baahan yahay aan rajaynayno in aan dadkeena ka faa'iideysanaan anagana aan ugu keenno qof kasta u baahan in oo barnaamijyada ka danayna oo kale wala soo xiriiri karaa exam wala soo xiriiri karaa in systemkan hydroponic oo arlaanta wax la beeranayo hadaa u baahan tahay wala soo xiriiri kartaa waxaana kala soo xiriiraysaa aalad kasta social media ka isticmaasha aada YouTube-ka ama ha ahaado TikTok-geeda ama ha ahaado Facebook-geeda marka si fiican lagu adeegi doonaa wax tayo leh oo maxaa la lahaay oo wanaagsan oo heli doonta aad ma hadda ikraan maanta si noogu wareejisa halkan Allah ku barakeeyo leena 你可以再让他说几句。 waxaa sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay bandhigan aad ku balaarsan waxaa kula kulmay ikraan oo ah sourcing agent waay oo wakiil ugu noqonaysa ganacsatada Soomaaliyeed dhamaan ay u sameeyay doonto soo dhaweyn qof kasto u baahan alaab u baahan China oo weligiis imaan haddoo imaanay in ay u sameynayso soo dhaweyn ay u sameynayso hadday u baahan tahay hadday u baahan yihiin shirkado in la geeyo ay geey doonto luqadda Chinese-ka ay ka caabi doonto hadday u baahan yihiin alaab in loo soo iibi doonto حتى هدي وباهين إن كمبني واحد أي كجذنا لو صوت جاكري ديار وتهاي كران إنه صوت جاكري ما كان عاوز دوان إنسان هدي كوفن أو لهو أو تيس لهذا هذه هذا ما سنت كران سيد أنا نوع عابس وحرجنا جرح الصومالي نوع عابس سدوا هذا ما سنت هاي حسيتو كلا كميد أها جناحستة كسر قيب كش برنامجك Somali Lemon Union أو كسعده مدن عبد الله بشير سودو عبد الله دوا هاي إكران وما سنت هاي معرض كان ومعرض وين بندق وين وقفتي وحكسو قيب كلا ودما فر بدن أو عرب إيوه شركتها كسعودي دلوينها جاينا رؤانتي فرصة فر بدن إيوه شركتها بدن أو نسافرنا ماشان نسكو برناي waxaan dhihi karaa waa bandhig aad iyo aad u qiimo badan fursado fara badan aan ka faa'iidi doono insha Allah bandhigan amaanta ka soo qayb gashay sidee u aragtaa waa su'aal fiican aad u maasan tahay bandhigan waa bandhig weyn shirkado badan iskugu yimid wadamo kala duwan oo wadamada Carabta iyo dalweynaha China intaba ka socda annaga waxaan ka mid ahayn shirkadihii ka soo qayb galay waxaan ka socday Somali Lemon Union ما شاء الله marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shaqada ay qabato Somali Lemon Union Somali Lemon Union waxay qabataa dry lemon ka leenta qalindaraanta ay qalajidaa kadibna process gareydaa waxaan ku sameynaa inaan qalajino kadibna aan markuba saatan waaye marka labaadna warshadan marinaa sidaanay noqotaa waan sifeynaayo waad kala waxaan u diyaarinaa inaan qaab standard ah oo loo dhoofi karo caalami ah aan ka dhigno hadda waxaan geynaa waddanka China wax ma keeno laakiin wadamo fara badan aan naga qaatay ilaa 6 wadan oo Imaaraadka Carabta Iraq Iran iyo Qatar Turki iyo Saudi Arabia aan naga qaata hadda laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan waddankan sidii aan uga shaqeey lahayn oo aan waddankan u keeni lahayn oo liinta Soomaaliya ay China u keeni lahayd halkii Soomaaliya kaliya wax loo dhoofi jiray wax loo geey jiray inaan ka shaqeyno in productka Soomaaliya ay China keenaan
iyaguna Jayneysku ay bartaan warshadaha Jayna ay isticmaalaan fursadaas ka jirta Jayna aan ka faa'iideysanaan rajaynaa insha Allah inaan ka shaqeyno sidoo kale maxaa ugu baaqaysaa dalkeena Soomaaliya dhexdeeda sidee uga faa'iideysan karaan warshadan waa maasanta Ikraan horta shirkadaha Soomaaliya waxaan dhihi lahaa meeshii wax loo dhoofi lahaa kaliya aan laga fakirin laga fakaro wadanka wax soo saarkiisa sidii loo suuq geey lahaa oo caalamka loo geey lahaa oo wadanka dhaqaale uga soo gali lahaayeen waxaan leeyahay inaan aan dhiirigelinayo shirkadaha la midka ah Somali Lemon Union oo kale inay ka shaqeeyaan wadanka wax soo saarka wadanka oo ay dhoofiyaan haddii aan hoos u galo Somali Lemon Union waxay shaqo abuur u sameeyay dad aad u badan oo beeraley ah dad ganacsato ah qoysas iyo dad aad u badan ayaa ka hela shaqo oo ka shaqeeya marka mar walba ee wadanka wasaarkiisa uu banaanka tago waxa badanaya wadanka dhaqaalihiisa kor u kacaya GDP-ga wadanka kor u kacaya marka waxaan dhiirigelinayaa in sida shirkadahan oo kale loo shaqeeyo oo wadanka wax soo saarka wadanka xoog la saaro si wadanka dhaqaalihiisu uu kor u aado waxaan leeyahay dadka xoolaha ka shaqeeya dadka beeraha beeraleyda inay dhammaan fursadan oo furan tahay wadanka China wax fursado fara badan ka bannaan inay ka shaqeystaan sidoo kale waxay u heli karaan inay la shaqeeyaan oo liinta ay ka shaqeystaan oo ganacsi furan cid walba ay ka faa'iideysan karto waaye calena soo dhawaado maasantii aada ugu maasantaa wareysigan qiimaha badan aana siisay iyo shaqada aad dalkeena u haysiin as a team Somali Lemon Union waxaana example u tihiin hadda lemon bas adinka samaysiine imagine meeqa fruit laga samayn karaa wax marka aada u maasantihiin aad iyo aad mudan aad iyo aad u maasantaa